السلام عليكم وانا السلام يسولو هذا دلو دمرك iyo nimanka keeba qiyaamo badan ma nimanka qiyaamo badan mise dumarka maanta qisada ka sheekeynaya soo dhawaada qisadan waxay leedahay gabadhanu nin fiican bay qabay oo aan isku kalsoonahay oo aan naftayda ku aamino way tiri oo aan waligay soran dib ku geysanaya ama wax ku sameynaya waxay tiri markaa ninkayga shaqadaan isku baranay in badan baan isnaqaanay shaqaan ku wada shaqayn jiray waxay tiri waxaan go'aansanay inaan holiday wada qabano sanad kasta mar kasta waxaan tagi jiray wadan cusub baan soo booqan jiray marka wax weerware kama qabin oo qofan ku kalsoonahay ahaa waxay tiri maalmaha kamid ah anagoo iska fadhina oo isaguna laptopka isticmaalayo aniguna aan iska fadhiyo way tiri fadhiga waxay tiri anigu marka hore maan ahayn dadka laptopkiisa isticmaalaya eega buu suuligu galay tiri intuu laptopkii ka kacay marka maskaxdeeda waxa ku soo dhacday tiri bal emailkaaga check gareeyo wax yara ka eeg laptopka intuu suuliga ku jiro marka waxay tiri laptopkii baan furay marka wax warqad baa igu soo dhacday uu iskuul ku qoran yahay oo la leeyahay soo saxiix gabadh magaceedna ku qoran yahay marka waxay tidaro gabadhan maxay baan siri iskuulkan maxay ilmahan meesha ku qoran maxay confused bay igu dhacay tir confused because one ogaa inaan ninkayga ciyaar lahayn waxay tiri waxaan ka daba tag ninkii markuu guriga ka baxay ee tagay ayaan laptopkiisa baaritaan ku sameeyay laptop waxay ka soo baxay waxyaalo aan weligay islahayn markaan furay bay tiri sidoo qof macnaa film daawanayo kala noqday ninku family buu leeyahay aanan ogeyn family sira ayuu leeyahay oo qarsanayay ilmu leeyahay gabadh buu leeyahay gabadhay 4 sano si yaqaaneen waxay gabadhii facebookeedii baan helay iyagoo wada sawiraan iska qaadqaadan wada qadeynaya iyagoo restaurant fadhiya iyagoo qoslaya waxay tii ninka markaan wajigiisa eegaba waxaa maskaxdeeda waxa ku soo dhacday isagoo qoslaya markaan arko sawirada waxaan tiri talomaadu kugu qoslaya isagoo waxaan ugu ogaa mugta uga qareebay tiri muraadilaa waxay tiri gabadhii waan muraadilaa markuu soo noqday waxay tiri waxaan ku sigtay inaan ceejiyo oo cunaha geebkiisa inta saa u qabto dilo laakiinse waxay tiri waan isceliyay waxaan tiri adigoo waxaan ku sameeyay wax ka xumood ku sameyn kartaa iska daa waxay tiri marka habeenkii waxaan ka dhaadhiciyay inaan holiday wada bukureysano oo wadanaan hore u tegin inaan tagno waxay tiri wadan 2 ticket baan jaray bay tiri wadanaan aniga hore u tegay oo aan isagu tegin baan bukureeyay waxay tiri marka Morocco baan ticket u jaranay 2 week baan waxaan bukureeyay hotel waxay tiri habeenkii ugu horeeyay markaan hotelka tagnay waxay tiri waxaan ka dhergay khamri gaalada khamriga iska cabaan ogtahay gabadhan storyga sheegaysa ma maleeyay qof sunan ahayd marka waxay tiri khamri ma ka dhergay khamrigan waa lagu luloodaa markuu khamrigii aad u cabay uu gamay bay tiri markuu gamay baan aniga shandadeeda intaan soo qaatay baan waxaan ka soo qaatay baasaboorkiisii baan ka qaatay walletkiisii oo kaararkiisii lacagtiisii wuxuu ku jiraan iyo mobilkiisii waxay tiri isagoo halkii hurtaan kaga tagay airportkan ku noqday xaafadeedii waan kaga noqday bay tiri iminka 2 week baa ka soo wareegtay waqtigan ninka ka imi juuq iyo taaqtoon lagama maqleen waxay tiri waxaan rajeynayaa inay naagtiina ka wararsan tahay waslada dal maxaan ku dhacay isaguna uu dareemay baqdintaan dareemay iyo naxdintaan dareemay mid ka daran inuu dareemayo ayaan rajeynayaa marka qisadan ka soo warramay waxay idin la tahay gabadh waxay samaysay ma khalad baa mise waa sax wuxuu isagu ku sameeyay ma sax baa mise waa khalad maxaa ka oran lahaydeen bal comments-ka igu soo qora insha Allah. Salaam calaykum.